waxaan maanta idiin wadaa qiso dhab ah oo dhacday. Fadlan ha ilmaaminna subscribe hadaad ku cusubta kanaalka kadib furo gambalaalka si aad ugu noqoto daawadayaasha ugu horeeya. Mahadsanid. Sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Waxaan ahaa arday dhigta jaamacad. Waxaan xiriir la lahaa gabdho badan, laakiin gabar baa si aad ah saaxiibo u ahayn. Waxaanayna dhex maray cilaaqaad aan sharci ahayn. In muddo markaan wada soconay ayaa gabadhii waxay qaaday uur. Reerkoodii ayaa ogaaday. Waxayna u sheegtay inaan aniga u weeyay. Kadib waxay soo weeraray walaalkeed. Waxaan ku yiri ma aqaan walaasha ee raadi meeshay kala timid uurka. Kadib wuu iga tagay. Muddo kadib maalin ayaa waxaan soo galay gurigeennii. Hooyaday oo miir dabooshay ayaan la kulmay oo dhulka taala. Waxaan isku dayay inaan toonsiyo. Way soo toostay, way qaylisay. Dib ayay haddana u miir daboolantay. Mar labaad ayaan kiciyay wayna soo toostay. Kolkaas ayaan ku yiri hooyo maxaa kugu dhacay? Waxay igu tiri walaasha. Kadib ayaan ku yiri maxaa jira hooyo? Walaashii maxaa ku dhacay? Waxay igu tiri walaasha waxaa uureeyay wiilka dariska. Kadib anigoo xanaaqsan ayaan aaday wiilkii jaarka aan ahayn. Waan qabtay markaan damcay inaan garaaco ayuu igu yiri warniyow ma aqaan walaasha ee raadsa meesha ay kala timid uurka. Durbadiiba waxaa qalbigay ku soo dhacay hadalkii aan ku yiri gabadhii aan jaamacadda wada dhigan jirnay ee aan uureeyay walaalkeed. Horaa loo yiri zinadu waa deyn kugu maqan waana lagaa gudi. Dhowr sano kadib waxaan go'aansaday inaan guursado gabar ayaan doontay. Waana la ii guuriyay habeenkii aqalgalka. Waan fajacay oo waxaan la kulmay la yaab. Caruusada aan soo guursaday maba ahaan gabar oo waxay ahaan jirtay zaaniyad hore. Waxaan xasuustay aayaddii Quraanka ee dhahaysay zaani ma guursado zaaniyad mooyee. Anoo arrintaas la yaaban ay gabadhii waxay igu tiri walaalow ii ceeb astur Allah ku ceeb asture. Intaan qalbigii ku noqday ayaan iri Ilaahayow ii dambi dhaaf. Cuqubadii aan galay ayaa liga goonayaa. Sanado markaan wada joognay ayaa waxay ii dhashay gabar aad u qurux badan. Gabadhii markay gaartay 9 jir waxaa kufsaday waardiyihii guriga. Fiiro gaar ah ogow waxaad ku samaysid gabdhaha kale in lagu samayn doono walaasha ama gabadhaada. Ilaahay waa xaq soore dulmigana raalli kama ahaan. Qof walba wuxuu geysto in la mid ah ayuu helaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada video.